بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد ولا ليال مدنيال مروين marka hore waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan u mahadcelinayaa asxaabta hawshan soo dhaweynta ah u abaabushay wasiir Hilaal wasiir ku soo dhaw magaalada Columbus waa magaalo runtii Soomaalinimada laga jecel yahay waa magaalo wadaniyad ay dadkeedu caan ku yihiin waxaan rabaa qiso yar oo ku saabsan arrintaas inaan tilmaamo sanadkii 2014 ayaa waxaan aadnay shir ka dhacay magaalada Addis Ababa dad reer Columbus ah oo aqoon-yahanaha ka mid ah dadkii tagay intaan reer Columbus ka ahayd ayaa gaar waxa inoogu yeeray nin mas'uul ah oo nimankii Tigreega ahaa wuxuu inagu yiri magaalada ka timaadeen waa meesha kaliya oo Soomaalida joogtaa wali Ethiopia nacab tahay oo wali u haystaan inay colaad ka dhaxayso Soomaaliya iyo Ethiopia asagu wuxuu islaa annaga inuu wax noo sheego laakiin runtii markaan soo laabanay waa ku faraxnay warkii asaga ahaa si aadan ugu faraxnay because dad nool oo og taariikhdoodii oo ka warqaba cidii dadkana ka gashay oo og cidda dhibaatada ku haysta inaan nahay ayuu noo tilmaamay marka reer Columbus waa mahadsantihiin hawlahaad qabataan sidaad had iyo goor ugu taagan tihiin midnimada wadajirka qarannimada Soomaaliyeed sidaad mar walba uga mudaharaadaan uga dhiidhidaan uga hadashaan wixii dhibaato ah oo dadka Soomaaliyeed lagu sameeynayo aad baan idinku mahadcelinayaa wasiirku waa wasiir ku-xigeenka batroolka dabcan waa laga sheekeeyay dhowr waxyaabood oo ku saabsan arrinta Soomaaliya in muddo fara badan la tilmaamayay inay shidaal aad u fara badan leedahay oo ay shidaal ka buuxdo waxaan rabaa inaan dhaho qaaradda Afrika markii gumaystaha reer Yurub uu ku soo duulay sababtii uu u yimid waxay ahayd wuxuu raadinayay khayraadku raadinayay waxaa ka mid ahaa dad oo Afrika waxay leedahay dad karti badan oo shaqo badan dadka inuu adoonsado soo dhoofsado qayb bay ka ahayd waxaa ka mid ahayd Soomaaliya haddaan tusaale ahaan u soo qaato cuntu raadinayay Faransiis iyo Ingiriis baa u soo horeeyay wax Soomaaliya yimaad xeebta Djibouti iyo xeebta Berbera markay yimaadeen hilib bay raadinayeen hilib lo'aad bay raadinayeen beef way ka mariyeen dalkii xoolihii waa gabagabeeyeen waa laayeen waa baabi'iyeen marka hadda lafteeda annagu khayraadkeena in la soo saaro waa raadinaynaa waa u baahannahay laakiin waa mindi laba af leh arrinta ayada ah waxa loo baahan yahay dabcan dawladda Soomaaliyeed talaabooyinka qaaday talaabooyin runtii aad loo bogaadiyo weeyaan waxaan akhriyay journal la yiraahdo Petroleum Economics warbixin oo ka qoray shidaalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya arrintaas ay u maareysay wuxuu amaanay laba waxyaabood oo ay dawladda Soomaaliya sameysay mid waa shuruudaha ay dawladda Soomaaliya u dejisay cidii doonaysa inay ka qayb qaadato soo saaridda shidaalka oo shuruudahaas ay ka mid tahay in shirkadda imanaysa oo soo raadinaysa waxan ay lacagta ay haysato iyo miisaaniyadda ay haysato ay xad gaarsiisan tahay in shirkadaas ay hawl bilowdo muddo 6 bilood gudaheed oo ay dalka soo degto shuruudo taas oo kala ah runtii ay aad u amaaneen ayaa dawladdu sameysay arrin wanaagsan weeyaan jadwalka ay sameeyaan aad bay isagana u amaaneen marka arrimahaas waa arrimo wanaagsan dhanka kale waxaa jira xilli aan nugulnahayna waa joognaa Soomaaliya nimankii noo yimid oo gumaystaha ahaa oo aan hadda sheegay waxay nagu sameeyeen waxa uu Abooyamin Allah naxariista ku tilmaamay saan la kala jaraanahay buu heestii Soomaali baan ahay saan la kala jaraanahay saan waa harag hal harag way Soomaaliya sida u egtahay maabka Soomaaliya haddaad fiiriso dhulka Ethiopia ku jira ka Kenya ku jira haddii la isku daro harag buu eegay hal mar 7 meek marka saan la kala jaraanahay sumada ay ku wada taal hal sumadahan leeyahay rag baa bari isaanyada anoo xoolo soofsada anoo duurka ku jiro xoolaha iska dhaqda ya calaamado la kala jeexjeexay oo xuduudo la kala sameeyay oo dalal la igu kala daray haddaan baraarugsanaanin oo aan khayraadkeenaas ku baraarugsanaanin waa la saanyanayaa
asagana waa la sameynaya marka waxaan wasiirka kulley warbixin uu naga siin doonaa meesha wax marayaan dabcan waxaan ugu baaqayaa in dawladda Soomaaliyeed ay feejignaan aad u weyn muujiso arrintaas si weyn xil la isaga saaro la dhiso hay'adihii ka shaqeyn lahaa hawsha ayada ah runtii sharciga waa la meel mariyay waxyaabo badan baa la sameeyay in laakiin wadadaas aan laga leexanin oo si qarsoodi ah iyo si aan daah furnayn iyo si maaragtay shakhsi u danaynaysa aan loo maareynin arrintaas ayaan kulley ku baaqayaa shacabka Soomaaliyeedna hadda indhahoodu waa furan yihiin oo reer Ohio waliba indhahoodu waa furan yihiin waa dadkii dalka haystay ay ka cabaadeen haddii cid kale oo xalaynaysa ay arkaan kulley indhaha ma qarsan doonaan haddii aan la idmo